kusoo dhawaada khaatan dhegeysanaysaa ee barnaamijkan oo ah kii 11aad barnaamijyadii ku saabsanaa taariikhda Soomaalida. barnaamijkan maantana dhegeystayaal waxaanu ka bilaabaynaa dagaalkii dhexmaray Ethiopia iyo Soomaaliya sanadii 1977 iyo 78. dagaalkaasi arrimihii ka horeeyay intii aanu dhicin dagaalku waxa kamid ah Ethiopia oo si weyn ay wax isaga bedeleen kadib markii kacaankii Ethiopia ka dhashay waxa xoogobay dareemadii qoomiyadaha kala gedisan ee ku noolaa dalka Ethiopia gudihiisa. dawladii uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam si xoog leh ayaduna dareemadaasi cagta u saartay ama u cadaadisay. waxa isaguna waqtigaasi xumaaday xiriirkii u dhaxayn jiray Ethiopia iyo Mareykanka oo xilligaasi madaxweynaha uu ka ahaa madaxweynihii la oran jiray Jimmy Carter. bishii abril haddaba sanadkii 1977 ayaa Ethiopia ay xidhay Kagno oo ahayd xarun xagga isgaarsiinta oo Mareykanku ay ku lahaayeen magaalada Asmara. waxaana Ethiopia Mareykanka ay ku eedeeyeen in siyaasadoodu ay tahay mid munaafiqnimo ah marka la eego xagga arrimaha la xiriira daryeelka xuquuqda dadka oo ay ku eedeeyeen Mareykanku inaanu marna ka hadlin in xuquuqda dadka lagu xadgudbay xilligii boqor Haile Selassie uu ka talan jiray dalka Ethiopia. waxa kaloo ay saareen iyagana saraakiishii Mareykanka ka joogay dalka Ethiopia iyadoo xiriirka u dhaxeeyay Ethiopia iyo Mareykanku muddo dheer ahaa mid aad u qoto dheer. bal imaka haddaba dagaalka ka hor dhegeystayaal aynu eegno sida uu ahaa xiriirka u dhaxeeyay Soomaaliya iyo dalkii la oran jiray midowga Sovietiga. gaar ahaan Ruushku waxa uu ka qabay dagaal dhexmara Ethiopia iyo Soomaaliya. General Galal oo saraakiisha sare ee ciidamada Soomaaliya ka mid ahaa xilligaasi ayaanu wax ka weydiinay waxaanu ku jawaabay. waxa weeye aadan waa maray horta dagaalka ummadda Soomaaliyeed oo dhan markaas way rabtay in dagaalkaas la galo oo iyadoo loo arkayay in fursad loo helay in gumaysigii amxaarada meesha laga saaro. Soomaalida kaliya ma rabinay waxa la moog yahay in bilowgii dagaalkaas in xataa midowgii Sovieti uu doonayay oo uu nagu dhiirigeliyay oo waliba nagu adkeeyay. sababtan waxay ahayd markii laga saaray Masar laga saaray oo waayay kanaalkii iyo xoogii Mediterranean meesha uu dhulkii uu ku lahaa ayay u soo baxday in balance-kii powerska oo adduunka ama strategic deployment of ciidamadoodii waaweynaa in hoos u dhac ku yimid ayay ogaadeen. markaas waxay goosteen ayaguna inay arrintaas ka dabaaqtamaan. dabaaqtankiina wuxuu gaarsiiyey inay xiriirka ay Soomaaliya la lahaayeen si adkeeyaan. Ethiopia inay meesha ka saaraan rejiimkii Ethiopia inay meesha ka saaraan oo boqortooyada ahaa. waagaas ayaan ogaanay xataa in Yementii Koonfureed iyo jabhad ka dagaalami jirtay dhinaca aan u malaynayo xuduudda u dhaxaysa Yemen iyo Oman in jabhad ka dagaalamaysa iyo Yementii Koonfureed la isbiirsadaan in destabilization lagu rido boqortooyada suldaanka ka taliya Amman ka taliya ayagoo ogaa in haddana xasillo darre ay ku socotay Iran boqorkii Shaahi Iran ay ku socotay. ujeedadooda weynuna waxay ahayd inay meeshan qorigan Hormuz la yiraahdo inay qabsadaan. markaas saas ma waxa waday midowgii Soviyetka wadamiya midowgii waxaan ku sheegay midowgii Soviyetka waday oo ugu argutaan markuu Port Said iyo waayay kanaalkii sidaas ayuu rabay. annaga wuxuu yiri dhulkiina hadduu diyaar yahay waxaan gacan baa idin siinaya ka qabsado. intaas kalena waa noo sheegeen. aan halka ka dhaxgal marka yaa idin sheegay ma nima saraakiil idin sheegay ma siyaasiyiin Ruush idin sheegay. markii hore horta 73 markii meesha laga soo saaray waxa dhulka yimid Marshal Grechko ninkii la dhihi jiray ciidamada wasiirka gaashaandhigga ahaa. ninkaas ayaa soo horseeday. markaas oo waxaas waa ka wada sheekaysteen isaga iyo Maxamed Siyaad iyo madaxda sare ciidamada. dabadii markuu noqday waxaa la soo diray nin Marshal ahaa Sergey Grechkov la dhihi jiray. ninkaas noo yimid dhowr qof buu la kulmay aniga kamid ahaa Samantara kamid ahaa Maxamed Siyaad kamid ahaa. waa sheekay wixii uu sheegay wixii uu sarsaray wixii uu xagga uu dhistay. adiga markuu dareemay in qoonkaanuna ay anagu lafteena aan danaynayno ayuu yiri waa noqonaya waxaan soo dirayaa niman qabiiriin oo arrinta idin kala hadla. ka dhaxgalay waxyaabaha uu taabtaabanayay maxaa kamid ahaa markaa? wuxuu lahaa adduunkii balaskii waa lagu dheeray Masar baa ku dheeshay
hadda wadamadii hanta wadaagu saaxiibada ay adduunka kula haayeen uma soo gurman karaan meel walba laga xiray dariiq walba oo loo fariistay annaga wuxuu nagu cabsiinay markaas xataa haddii dhibaata idinku dhacdo idinma soo gurman karno ayuu annaga markaas ayuu nagu cabsiinayay oo meel walba waa nala ka xiray sidaas ayuu sheegayay ninkii admiraalka ahayoo la keenay oo lasoo diray marka kii marshalka aha noqday ayaa wixii details u sheegay aniga samantar iyo nin la dhihi jiray generaal abubakar xasan allahu naxariistay dhintay ayuu si qaasan ugu sheegay markii wixii laisla fiiriyana anigu si qaasa ayaan ugu sii dhoon daray hoggaanka sahanka ayaan anigu joogay oo xaggan maaragtay wardoonka sirta iyo waxyaalahaas ayaan gaashaaniga u joogay waa markaas markay nagu dhiirigelinayaan inaan gobonadoonkii dib usoo noolayno inaan halkaas ku dhifanno general galaad waqti ma ahayd goortaasi waa 74 bilowgeedii nimanku waaba degdegsanayeen annagu hadda markaasba waxaan bilownay laba walxadba waa bilownay codsi cusub oo hub oo inay nafsiyaan iyo in aan annaguna gobonadoonkii soo noolayno gobonadoonkii baana soo noolaynay anigaa la ii xil saaray tababarkooda iyo aruurintooda iyo howlgelintooda iyo taakulayntoodaba adiga 75 dhammaadkeedii ilaa iyo waxaan wadnay 77 bartamaheedii kaas wuxuu ahaa general galaal haddii haddaba dalkii midowga Soofiyeedka aan waxba markii hore ka qabin Soomaaliya in dagaal ay ku qaado dalka Ethiopia oo dhulka Soomaalidu ay sheeganaysa ay xoog ku qabsato oo waliba Ruushku arintaasi uu ku degdegsanaa xilligii laga saaray dalka Masar sida uu noo sheegay general galaal su'aasha la isweydiin karaa waxa weeye maxaa markii dambe bedelay mowqifkii dalkii midowga Soofiyeedka la oran jiray uu arintaasi ka taagnaa wasiirkii warfaafinta ee Soomaaliya xilligii isbedelkaas uu ka dhacay waxa uu ahaa Cabdulqaasim Salaad Xasan Cabdulqaasim haynoo faahfaahiyo halka sabta ku qorantay xiriirkii wanaagsanaa u dhaxeeyay dalkii la oran jiray midowga Soofiyeedka iyo Soomaaliya bishii December 1976 waxa Mengistu la galay heshiis iskaashi iyo military dawladdii midowga Soofiyeedka heshiiskaas ayaa dhibaato weyn dawladda Soomaaliyeed u aragtay dabadeedna waxay ixtijaaj ama protest uga qabdintay dawladdii midowga Soofiyeedka waxaanay u cadaysay inuu heshiiskaas ka soo horjeedo midkii ay horay ula gashay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Soofiyeedku u galeen 1974 oo dhigayay inaan labada dhinac ee heshiiska gashay dhinacna xulfi la noqon karin ama la bahoobi karin dhinac dagaal ka dhaxeeyo dhinaca kale arrintaa markii Soofiyeetiga la gaarsiiyay waxay soo direen madaxweynahoodii waqtigaas Nikolai Badgorny oo booqasho ku yimid Soomaaliya 2 ilaa 3 Maarso 1977 Badgorny waxa loo cadeeyay inaan marnaba la aqbali karin hubaynta Soviet Union uu rabo inuu hubeeyo dawladdii ama maamulkii Mengistu Haile Mariam kaas oo dagaal naga dhaxeeyay hayeeshee iyagu waxay ku dadaalayeen in loo arko arrinta si kale iskaashi goboleed la sameeyo xaaladana si kale lagu dhameeyo taasaana waxay keentay in isla bishaas Maarso uu dalka yimaado Fidel Castro madaxweynaha Cuba oo ka socda dawladda Soofiyeetiga 15 Maarso inuu yimaado dalkan Soomaaliya uuna soo jeediyo in wada hadal qarsoodiya magaalada Cadan ay ku yeeshaan madaxweynayaasha Maxamed Siyaad Barre Mengistu Haile Mariam Castro Fidel Castro iyo Salim Rubay Ali oo madaxweynihii Cadan ama Yementa Koofureed ahaa shirkaas oo la aqbalay ayaa wafdi uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre hogaaminayay ka qayb galay halkaas waxa Fidel Castro ka soo jeediyay talo uu ka siday Soofiyeedka iyo bahda beesha hanti wadaagga oo oranaysay
waa in confederaaliya habka la yidhaaho dawlado iskaashaday oo confederaal ah waa inay noqdaan Ethiopia, Eritrea, Soomaaliya iyo Yemanta Koonfur. Fikradaas Mengistu uu ku gacan sayray isagoo leh ma suurowdo in Ethiopia iyo Eritrea ay isku si iyagoo siman uga qayb qaataan confederaaliyadaas. dhanka kale Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri anagu waxba kama qabno ha yeeshee waa in marka hore loo ogolaadaa dadyowga Soomaali galbeed iyo abo ay ka talintooda markaas dad xora oo confederaaliya wada gala waa in la noqdaa taasoo iyana la diiday waa lagu kala tagay subaxdii qolada meesheedii bay aad dabadeed waxaa dhacay in loo diray Sovietiga markii la ogaaday inay ku sii soconayaan taageeridii Mengistu in bishii June 1977 loo diray madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya ahaana wasiirka gaashaandhigga Maxamed Cali Samantar halkaasoo uu kula kulmay Moscow xogayihii guud ee xisbiga shuuciga Brezhnev marshaalkii xukumayay ciidamada gaashaandhigga Marshal Ustinov iyo madaxdii xukuumadda dalkaas dambaal adag oo uu ka siday dawladda Soomaaliya oo nuxurkeedu kaan soo sheegay yahay oo ah ulfi inaad la noqotaan haddaad tihiin Sovietiga ma qaadan karo ayuu gaarsiiyey iyaguna waxay cadeeyeen inay danaynayaan heshiiskii iyaga iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay ha yeeshee ay rabaan in xaaladda si kale lagu dhameeyo arrintu halka markay marayso gobonnimo doonkiina uu dhul qabsaday doora ha yeeshee magaalooyinka waaweyn ma ahane baadiyihii oo dhan ay qabsadeen bishii Luulyo 1977 horaanteedii ayaa golihii dhexe ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed ee dalkan ka talinay wuxuu yeeshay shir haneenkii qabsoomay ilaa subaxdiina socday shirkaas ayaana lagu go'aamiyay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay toos u galaan dagaalka iyagoo gacan siinaya jabhadaha hubaysan oo la dagaalamayay xukunkii Mengistu. waata Cabdiqaasim waxaad ka warantaa maadaama haddaba golihii uu goostay in dagaalka si toos loo galo ma jirtay cid iyadu talahaan soo jeedisay oo tiri dagaalkii inaan galama si kale aan uga wareegno golaha dhexe dhammaantii way isku raacay in dagaalka la galo markii hal qof laga reebo waxaa diidanaa oo ra'yigiisa cadaystay inuu diidan yahay guddoomiyihii hoggaanka ideolojiyada xisbiga Cabdiraxmaan Caydiid oo kaliya diiday waxaad ka warantaa Cabdiqaasim Allah ha naxariistay Cabdiraxmaan Caydiid markii isagu meesha ka dooday waxyaabaha uu cuskanayay in dagaalkaasi aan la gelin maxaad ka xasuusantahay Cabdiraxmaan wuxuu ahaa ragga aad xaggan mabda'a hanti wadaagga ugu dheer wuxuu xeelinayay kollayba aragtidiisa wuxuu xeelinayay xiriirkii lala lahaa beesha hanti wadaagga iyo Soviet Union wuxuu arkayay ama uu sahminayay kala tagga beesha hanti wadaagga iyo Soomaaliya ay kala tagaan inay dhibaato u keenayso meelahaas ayay ku socotay ra'yigiisu haddaan xusuusto waxaad ka warantaa Soomaalidu waxay ku maamulada Cabdiqaasim haddaanad buur ahayn buur ku tiirsano maadaama markaasi Ruushkii u cadaysateen oo Ethiopia oo uu idin lahaa la dagaalamana dawladdii ay go'aan gaadheen la dagaalano ma hayseen markaa ama ma lagaga wada hadlay golayaashii arrintaasi lagu gorfaynayay cida kale ee ay Soomaaliya ku tiirsan karto markaa ama wax ballan qaad ma ka haysatay run ahaantii waa jirtay haba tabar yaraato diblomaasiyaddu waxa jiray dalalka carabta ah oo aanu ka mid ka nahay waxa taageero xoog leh ayaa laga haystay oo ama qadiyada loo diray ka haysatay ama dawladda Soomaaliyeed ka haysatay dalal kalena waa ay jireen ma faramaray Soomaalidu ha yeeshee sida marka dambe soo bixi doonta marna meesha lama dhigan garab leeg ciidan u dagaalama Mengistu iyo rejiimkiisii in Warsaw ay keenayso gurmad aan la arag inta badan taariikhda wixii dagaalkii labaad ka dambeeyay si dhif mooye oo cirka iyo baddaba ah oo taangiyo
diyaarado madaafiic sawaariikh leh intaba oo waqti kooban lagu keenay in la keenayo iyo ciidan socda oo 20 ilaa 25 kun ilaa 30 kun gaaraya oo isugu jiray Kuban, Soviet, East Germany, Yemen, حتى خبر ليبيا iyo Israa'iil intaas oo isbahaysiya ayaa ka hor imaanaysa qadiyadatan xisaabta laguma darin sababtoo ah markaa ma ayan muuqan kaasi waxa Cabdulqaasim Salaad Xasan inkastoo haddaba aanay Soomaalida u muuqanin sida shaxda u dhici karto haddii dagaal dhex maro Itoobiya iyo Soomaaliya waa marka koobaad ee dalkii midowga Soofiyeed loo oran jiray waxa uu cadeeyay Soomaalida in uu doonayo saaxiibtinimo wanaagsan in labada wadanba uu la yeesho sida ay noo sheegeen saraakiil goobjoog ahayd booqashadii ku tagay Maxamed Cali Samatar dalka midowga Soofiyeed 1977 waqtiyadii Ruushku uu bilaabay in xiriir wanaagsan uu la yeesho dalka Itoobiya isagoo saraakiisha xooga dalka Soomaaliyeed ugu waramayay markii uu soo laabtay rugtii saraakiisha ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in midowga Soofiyeed ay u sheegeen inay doonayaan xiriir wanaagsan oo dhexmara Itoobiya oo ay u arkaan markaasi kaasi inuu yahay mid aan waxba u dhimaynin ama waxyeello gaarsiinaynin saaxiibtinimada iyo iskaashiga u dhaxeeyay Soomaaliya iyo midowga Soofiyeed sida saraakiishaasi goobjoog ahayd ay noo sheegeen Ruushku waxa berigaasi General Samatar uu u sheegay sida uu ku waramay maalintaasi in Soomaalidu ay kala garato marka midowga Soofiyeed Itoobiya uu siinayo dabaabad iyo marka cagaf uu siinayo waxyaabaha kale ee dalkii midowga Soofiyeed loo oran jiray uu ugu ballan qaaday dhinaca Soomaalida waqtigaasi General Samatar uu ku tagay booqashada dalkii midowga Soofiyeed loo oran jiray waxa kamid ahayd in isagu uu la wareego miisaaniyada xooga dalka Soomaaliyeed in isagu uu siiyo shidaalkooda una dhiso warshad samaysa taayirada baabuurta iyo mid kale iyaduna samaysa baatariyada oo ka sameeyo magaalada Muqdisho waxa kale waqtigaasi Ruushku ugu ballan qaaday si Soomaalida uga joojiyo dagaalkaasi inay galaan in dhowr kun oo guri ciidamada uga dhiso degmooyinka Kismaayo iyo iyo cusbitaal guud oo isla markaasna loo isticmaali karo dhinaca nasashada oo ka dhiso magaalada Ceergaabo arinta labaadna waxa ay tahay hadii mowqifkii Ruushku uu sida ahaa oo ka soo horjeeday dagaal Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmara dhinacii kale ee Soomaalida oo carari lahaayeen oo ahayd Mareykanka mowqifkoodu muxuu ahaa madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaasi Jimmy Carter oo ka hadlayay wixii Soomaalidu ay weydiisatay iyo sida uu ka yeelay waxa uu yiri that Somalia should not be permitted to succeed in trying to take Ethiopian territory, and I refuse to give the Somali government any weapons. waxa uu yiri Carter waxa ila noqotay in Soomaaliya aan looga ogolaanin in ay ku guuleysato doonisteeda ah in ay qabsato dhul Itoobiya ay leedahay waxaan markaasi diiday in dawladda Soomaalida aan siiyo waxba waxa dab halkii ka sii socday labadii dhinacba inay u diyaar garoobaan dagaal bishii June 26 sanadkii 1977 ayaa 70 kun oo qof oo beeralay ah oo ay tababareen saraakiil Ruush iyo Kuban isugu jira ay dowladdu ku sameeyeen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya July dhamaadkeedina jabhadii loo oran jiray WSLF ayaa sheegatay in ay qabsatay Goday xilligaasi Itoobiya waxa ay ku eedeysay in Soomaalidu weerar buuxo xadgudub ah ay ku soo qaaday dalka Itoobiya 7 bishii September waxa Itoobiya xidhiidhkii xagga diblomaasiga ay u goosay Soomaaliya maalintii ku xigtay oo 8 bishaasna hadal wada jir ah oo ay soo saareen Itoobiya iyo Kenya oo iskaashi rasmi ah oo xagga difaaca uu ka dhaxeeyay waxa Soomaaliya wada jir ahaan ay ugu eedeeyeen in Itoobiya ay ku soo qaaday weerar xadgudub ah oo qaawan hadda markii Itoobiya xiriirka xagga diblomaasiga ay u gooysay Soomaaliya waxa Soomaalida danjiro uga ahaa magaalada Addis Ababa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo Turku magaadheer Cabdiraxmaan waxa aan weydiiyay bal dhinaca Itoobiya arrimo xagga dagaalka sida ay ka hayeen iyo iyagu hawshoodu waxa ahayd amaba ay qabanayeen xilligaasi arrimo ay xumaadeen Cabdiraxmaan waxa uu ku jawaabay waxa dhacday marka Itoobiya waxa aragtay Soomaalidu sida u diyaar garoobayso iyo sida tahay waxay ku qalceen oo arkeen in Soomaaliya ay soo weerarayso waana ugu oran jireen muxuu ahaa kuwa madaxda iyo deerka marka xafladda isugu nimaadno dhowr jeer bay ugu yidhaahdeen waan ognahay inaad soo weeraraysaan laakiin waktigii baanaan garanaynin marka aad iyo aad ba waxay sameeyeen inay ciidamo xooga sameeyaan waxay qaadeen muxuu ahaa oo tababar u geliyeen 100 kun oo beeraleyda waxna xagga Eritrea waxna xagga Soomaalida u direeyeen
annagu haddii aanu joognay etoobiyana waa arkaynay wax kale oo la qaban kara inaanay jirin waajibka ugu weyneena saarani uu ahaa inaanu warka militariga khusuusan iyo ka etoobiya ku saabsan siyaasadeeda aanu xaggeena ka dhargino si ay ugu talagalaan oo qorshe ay samaysanayaan muxuu xagga militariga ay ugu talagalaan waxaan odhan karaa etoobiya mukhaabaraadkoodu ama wardoonkoodu xagga soomaalida wuu fiicnaa soomaaliya si u diyaargaroobayso ciidankeeda taangeedeeda hubkeeda waxeeda oo dhan waxaan odhan karaa waxa ugu weyn aanu ka helnay etoobiya ee gaadhsiinay muxuu ahaa muqdisho waxay ahayd inaanu helnay blaankii ama qorshihii war blank la odhan jiray haddii dagaal dhaco etoobiya ciidamadu se u dagaalamaya meelay ka dagaalamayaan qorshahooda waa maxay kaasi ugu weyna aanu helnay oo markaa iyadoo dhowr bood ay ka hadhay muxuu ahaa aanay dagaalkan filayn inaanu dhicin yaanu kaa gaadhsiinay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan axmed cali oo ahaa danjirihii soomaaliya ka fadhiyay wakhtigii dagaalku uu labada wadan ee etoobiya iyo soomaaliya dhex maray magaalada addis ababa barnaamijkiina intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa